dagaalo xoogan oo u dhaxeeya xoogaga mucaaradka dalka Suuriya iyo ciidamada daacadda u ah Bashar al-Assad ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Halab ee xadka uu Suuriya la wadaago wadanka Turkiga. dagaalkani oo saaka aroortii ka dhacay magaalada Halab ayaa waxaa ku nafwaayay ku dhawaad 30 qof halka tiro toban ay ku dhaawacmeen. sida lagu sheegay warbixin intaysan soo gelin ciidamada daacadda u ah Bashar al-Assad magaalada Halab ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan ayagoo sidoo kalena adeegsanayay diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopteriga iyo gantaalada ridada dheer. Suuriya ayaa sanadkii ugu dambeeyay waxa uu noqday mid martigeliya dagaalo aad u xoogan kuwaas oo inta badan ay ku nafwaayaan ama ay ku dhaawacmaan dadka shacabka ee maatida ah wadankaasi ku nool. qaramada midoobay ayaa waxay u soo magacaabay xogayihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan asagoo haddana wadadaalo uu ku doonayo in lagu xalliyo dagaalada oo u dhaxeeya xoogaga kacdoonka wada iyo kuwa Bashar al-Assad. lama saadaalin karo sida ay ku dhamaan doonto walow ay horey codka fiitowga u adeegsadeen wadamada China iyo Ruushka qaraar uu qaramada midoobay wax kaga qaban rabay wadanka Suuriya. wadanka Suuriya waxaa soo gaaray kacdoonadii aad ku xooganaa ee ka dhacay wadamada Carabta kaas ugu horeeyay wadanka Tunisia iyagoo doonaya inay iska dulqaadaan madaxda hogaaminaya wadamada Carabta kuwaas oo muddo aad u dheer haysay wadamada ay maamulayaan. Axmed Taajir TV-ga caalamiga Somalisat magaalada Oslo ee wadanka Norway.